barnaamijka maanta ay isugu nimi wuxuu faa'iido weyn u leeyahay gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaan hubaa in wax badan uu ka bedeli doono maadaama gabdhaha suxufiyiinta ahaa ay joogeen lagana dooday xaq u lahaanshaha gabdhaha suxufiyiinta ee Soomaaliyeed waxyaabaha maanta laga dooday oo faa'iidada gabdhaha waxa ka mid ahayd in gabdhuhu helaan xaqooda xilliga ay ku jiraan umusha xilliga ay ku jiraan imtixaan diyaariska xilliga ay ku jiraan mashaakilaadka kale iyagoo u socdaan mushaharaadkooda oo aan laga saarin waxyaabaha laga hadlay oo faa'iido weyn ay u aragnay inuu gabdhaha u leeyahay waxna uu ka bedeli doono waxa ka mid ahaa tababarada gabdhaha ay ka qayb qaataan in iyagii wiilashu ay siman yihiin maanta kamaamul ahaan aanu nala ku dhiirigeliyay halkana aanu ka faa'iidnay in shaqaalaha loo baahan yahay in contract loo sameeyo sidoo kale waxaan faa'iidnay in gabdhaha iyo wiilasha si siman mushaharkooda iyo dalacsiintooda labadaba si siman looga wada shaqeeyo waxaan faa'iideysanay in waxa soo baxa xilalka sare ah in loo tartamo gabdhaha iyo wiilasha